marka habartaani waa bar aad u muhiim ah oo waa meesha haddii aad linkiga iska diiwaangeliso aad dhiskoonka keliya ku heli doonto. haddii aadan linkiga iska diiwaangelin wax dhiskoon ah ma heli doontid. xogtan aad ayay muhiim u tahay oo hadhow markii aad akoonkii baasgareyso waxay ku weydiin doonaan in promo code-keeni uu shaqeeyey $11 dhiskoon aad hesho. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري وصاحب لمنتي مخرجين عافمad qabtaan maalin habeen marka idin wacan saaxiib yaal sida hore ugu socoteen waxaan shirkadan Fandox ka soo sameeyay laba muuqaal hore oo aan idinku tusinayay shuruucda shirkadan iyo sidoo kale muuqaalka kale oo aad muhiim u ah oo ah muuqaal aan idinku tusinayay lacag la bixista qaabka loo dalbado iyo caddeyn aan idinku tusinayay in shirkadan lacag la baxay $1. muuqaalkani waxa ay u khasbay dhalinyaro badan ayaa aad isu weydiinaya barteena telegramka. haddii aadan telegramka ku jirin fadlan kusoo biir telegramkeeni si aad uga socoto update-yadii ugu dambeeyay ama waxyaabaha shirkadaha cusub ayaan halkan idinku soo wadaagaa. kusoo biir telegramkeeni linki description-ka ama linkiga telegramka waxaad ka heli doontaa muuqaalkan hadda aad daawanayso description-kiisii ku dhufo qaybtan ay ku qoran tahay telegramka kadib si toos ugu weydinaa telegramkeeni. muuqaalkani saaxiib yaal waxaan ugu talagalnay sida la iskaga diiwaangelinayso shirkadda Fundbase adigoo 5% discount helaya haddii aad linkiga iska diiwaangeliso. waxaad samayn doontaa muuqaalkan description-ka yaalo ama comment-iga qaybta hor yaalo ayaa tagi doontaa. waxaad ku dhufa doontaa linkigan ay ku qoran tahay Fundbase registration kadib wuxuu si toos kuu geyn doonaa qaybta isdiiwaangelinta. halkaas ayaa kaa soo bixi doonta xogtaadii oo dhammaystiran oo waxaad gelin doontaa first name-kaagii, last name-kaagii, email-kaad iska diiwaangelinaysay iyo sidoo kale password-kaagii. meeshaan password adag u sameyso magacaaga geli, last name-ka geli, email-kaaga geli, password-ka geli, mar labaad ku celi kadibna waxaad ku dhufataa meeshaan ay ku qoran tahay declare. xogtaan aad buuxina waa isku soo laaban doonaa insha Allah. soo laabasho wanaagsan saaxiib yaal. xogteedii waa soo buuxinay kadib waxaad ka dooran doontaa meesha ku qoran create account oo la micno ah in akoonkaagii uu ku samaysmi doono. isla markii aad create account ku dhufato waxaa si toos ah email ugu dhici doonaa email-kaad iska diiwaangelisay. sidoo kale waxaa u baahan tahay inaad email-kaasi confirmation kasoo sameyso, email-ka gudaha u gasho kadibna aad confirm kasoo dhahdo. aniga hadda mobilkayga ayaa ka sameynaya, adiga email kuu soo dhici doono. email-kaasi mobilkaagii ama computerka waxaad markaas ka geli karto confirm kasoo dheh kadib sidaas ayaad akoonkii aad ku samaysay oo aad gudaha ugu gali kartaa Fundbase. waan kasoo confirm gariyay mobilkaygii oo waxaan samayn doonaa inaan dib u soo laabto kadib aan ku dhufto meesha ay ku qoran tahay buy challenge ayaan ku dhufanayaa kadib waxaan halkan gelinayaa email-kii iyo password-kii aan hadda soo samaystay oo halkan u jeedaa in your email iyo password ku qoran yahay. email-kaaga password-kaaga gasho kadib si toos ah wuxuu ku geyn doonaa dashboard-kii aad akoonka ugu iibsan lahayd. email-ka iyo xogteedii ayaan geliyay kadib waxaan leedahay sign in oo wuxuu si toos kuu geyn doonaa dashboard-ka. halkaani waa meeshii aad akoonka ka iibsan lahayd oo waxaa meeshaan ugu jeedaa dashboard-kii inaad gudaha ugu jirto qaybtii buyout-kii iyo competition-kii insha Allah muuqaal kale ayaan kasoo samayn doonaa. marka waxaad ka dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay new challenge oo ah inaad hadda challenge iibsanayso ama account challenge aad u baahan tahay. meeshaan new challenge ay ku qoran tahay hortaas ayaa click siinaysaa si aad akoonka ugu iibsato. marka waxaan samayn doonaa new challenge ayaa click soon doonaa kadib waxaa kuu soo bixi doono akoomankii kala duwan iyo akoomanka arabta. sidaa wada ognahay saaxiib yaal shirkadan akoomankoodii keliya MT5 ayay leeyihiin oo MT4 ma laha. waxa lagu tareegareynaya keliya waa MT5. marka waxaad mari doontaa 3 step. stepka koowaad oo ah configure, stepka labaad oo verify, stepka saddexaad ah oo aad lacagta ku bixinayso. marka waxaad samayn doontaa akoonka alla akoonkaad u baahan tahay ayaad dooranaysaa. kasoo qaad aniga waxaan leeyahay waxaan u baahanahay akoonka $100,000 ama $50,000 inaan gato ayaan u baahanahay leeyahay. kadib waxaad arki doontaa in qiimaha lagaa rabo meeshan uu ku qoran $289. kadib waxaad ku dhufanaysaa choose kadib waxaa kuu soo bixi doona xogtaada dhammaystiran inaad meeshan geliso title-kaagii. haddaad rag tahay meeshan waxaa ka dooran doontaa master, haddaad dumar tahayna meeshan waxaa ka dooran doontaa masters. aniga waxaan leeyahay ragaan ahay master aan ka dooranayaa. xogtani hore ayaan usoo buuxiyay kadib street-kaaga kadib address-kaagii ayaad meeshan gelinaysaa oo waxaa ujeedaa street-ka sidoo kale caasimada ku nooshahay, post code-ka Soomaaliya adaa joogto 252 iskaliya iska dheh
country Soomaaliya ka dooro xilliga aad dhalatay baasaboorkaaga ku qoran meeshaan geli xogtan aad ayay muhiim u tahay oo hadhow markii aad akoonkii baas gareyso waxay ku weydiin doonaan warqad ku cadeynayso adresska adiga markaas aad degan tahay so ogaaw adresska bank statementigaagii kugu qoran ama warqad allaala warqadii adres ahaan aad heli karto markaas adresska meesha ku qoran meeshaan ku qor si hadhow markii aad challenge ku baas gareyso aad warqadaas ugu dirto sidoo kale xilliga aad dhalatay baasaboorkaaga ku qoran inta geli wadankii aad baasaboorka haysatan hadda Soomaaliya ka haysato Soomaaliya geli so xogtan buuxi kadib proceed to pay ayaa leenahay waa soo laaban doona xogtan ay buuxineen so xogtan soo buuxiye kadib waxaa samayn doontaa meesha ku qoran tahay proceed to pay ayaad ku dhufanaysaa si aad stepka loogu gudiyo so marka saaxiib yaal waxaa ujeedaan in stepkii ugu dambeeyey ee lacag bixinta aan hadda imaanay oo meeshan waxaa arkaysaa ruliskii dhammaan shuruucda terms and conditions ay ku leeyahay ogolaad si aad akoonkaagii u iibsato so marka waxaan samayn doonaa I agree ayaa leeyahay oo ah inaan shuruucda funding groups aan raacsiisanahay marka habartaani waa bar aad u muhiim ah oo waa meesha haddii aad linkiga iska diiwaangeliso aad diskoonka keliya ku heli doonto haddii aadan linkiga iska diiwaangelin wax diskoon ah ma heli doontid so marka isku day inaad isticmaasho linkigii si aad 5% diskoon ah aad u hesho so marka waxaan samayn doonaa muuqaalkan qaybta description ka tag meesha ku qoran tahay forex program view oo waxaa halkan ku arki doontaa isticmaal coupon code 5% discount oo hesha ku qoran soo copy garee kadib bartaan email kadib meeshaan inta yuu coupon code ku qoran tahay fast ayaad ku leedahay kadibna waxaa leedahay apply si aad 5% discount ah aad u hesho so automatically waxaad u jeedin in promo code keeni uu shaqeeyay $12 discount aad hesho discount-kaani kaliya waxaad heli kartaa markii aad linkiga iska diiwaangeliso haddii aad linkiga iska diiwaangelin wax discount aad heli doontid oo $239 ayaad bixi doontaa so waxaan isku dayaa qaybta ugu dambeysa inaan sii gudbo oo waxaan leeyahay ma mastercard aad rabtaa inaad lacagta ku bixiso mise crypto haddii aad debitka rabto debitka dooro haddii aad crypto rabtana crypto dooro so aniga hadda waxaan leeyahay waxaan rabaa tusaalaha inaan ku bixiyo mastercardkii ayaan rabaa in lacagtayda ku bixiyo ayaan leeyahay so mastercardka ayaa doortay kadib waxaad meeshan gelinaysaa xogta kaarkaagii oo ah kaar numberkaagii sidoo kale meeshan waxaad gelinaysaa expirationkii ama xilliga kaarkaaga u dhacayo sidoo kale waxaad halkan gelinaysaa saddexda number dambe ee kaarkaaga ku qoran kadibna paynow ayaa leedahay so 2 daqiiqo kadib markii paymentiga aad samayso isla markaas waxaa kuu soo dhici doono akoonka challenge-gii aad markaas iibsatay sidoo kale haddii aad crypto rabto inaad crypto ayadana ku iibsato ama crypto ku gadato waxaad ka dooranaysaa meesha crypto ay ku qoran tahay oo qaybtii mastercardka ma dooranaysid waxaad ka dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay cryptocurrency oo qaybtan waa qaybtii debitka mastercardka qaybtan waa qaybta crypto hadaad crypto rabto inaad ku bixiso crypto click dib confirm dheh si toos ah wuxuu kuu geenayaa page-ka aad lacagta ku bixin lahayd ee cryptada so meeshaas waxaa kaaga soo muuqan doono qaabkii aad lacagta ku bixin lahayd oo iyadoo cryptocurrency ama USDT ha ahaato ama Bitcoin ha ahaato so waxaa ujeedaan in dashboardkeeni haddu soo baxay oo halkan waxaad kasii dooranaysaa kaliya leedahay qaabkee rabtaa inaad lacag ku bixiso waxaa leeyahay USDT inaan ku bixiyaa rabaa haddii aad rabto USDC coinkaas inaad ku bixiso coin alla coinka rabto halkaas ka dooranaysaa aniga waxaa leeyahay USDT oo TRC inaan ku bixiyaa rabaa so waxaa ujeedaa in fee-ga markaani meeshii 238 ee heeday $227 meeshii heed inay $238 ee noqoto it means transactionka fee-ga ayaa ku fuuli doono ama transactionka markaad lacagta dirayso ayaa extra kuuga ah markii aad cryptada aad ku iibinayso aad ku gadanayso akoonka so waxaa kula talin lahay si transactionkan aad ugu baaqato inaad kaarkaaga aad ku iibsato haddii aad ka maarmi kartana dhib ma laha oo cryptada ayaad ku iibsan kartaa so next step aan leeyahay oo waxaan u gudbi doonaa qaybta ugu dambeyso oo USDT lacag ku bixin lahaa kadib waxaa ujeedaa in formkii lacagta lagu bixin lahaa uu kuu diyaarsamay adresska USDT da diyaar ku yahay lacagta totalka aad bixin lahayd meeshan kugu qoran tahay kadib Binance-gaaga kadibna sidaas lacagta ku bixi ka hor intaan lacagta bixinna meesha emailkaaga geli si lacagta marka aad dirto si automatically email kugu soo dhaco oo kugu sheegay inaad lacagta bixisay saaxiib yaal qaabkaani waa qaabkii ugu fudud aad iskaga diiwaangelin karto shirkadda Funders adigoo heli doona 5% discount sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay ha hilmaamin inaad YouTube-keeni kusoo biirto muuqaalkan la gareyso sidoo kale barteeni Telegram-ka aad kusoo biirto wixii su'aalaad u baahan tahay sidoo kale Telegram-keeni kusoo biir halkaas ayaad iga soo weydiin doontaa
muuqaalkan iyo muuqaal kale intaan ku kulmayno waxaa iga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.